Hiiraan duhurnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay qaybihii ugu horreeyay barnaamijka bandhiga ayaana ku guda jirnaa magaalooyinka Beledweyne Buuloburta Jalaqsi iyo Jowhar ayaadna si toos ah inooga dhageysanaysaan halka caalamka intiisa kalena aad inaga dhegeysan kartaan live streamka. Shiinaha waxaa la sheegay inuu heshiis qarsoodi ah la galay markaasi waa Generaal Khalifa Haftar intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Liibiya iyadoo heshiiska uu dhigayay in Shiinuhu uu geeyo Liibiya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee awoodda u leh inay gantaallo culus qaadaan markaasi habka lacag bixinta ay ahayd in Generaal Khalifa Haftar uu u fududeeyo sida uu Shiinaha u heli lahaa kheyraadka Liibiya ee shidaalka cayriinka ugu horreeya. Heshiisku wuxuu dhigay $1 milyan inay ku baxayso hubka uu u baahan yahay Generaal Khalifa Haftar. Wadaxaajoodku waxa uu soo bilowday 2018 wuxuuna isku dayay Shiinuhu inuu hubka ku gaarsiiyo Liibiya iyadoona laga dhigayo gargaar caafimaad oo markaasi la xiriira COVID-19. Isla waqtigaas Shiinuhu waxa uu ka fogaanayay cunaqabataynta hubka. Shiinaha waxaa la ogaaday inuu markaasi qorshahan u adeegsaday shirkad fadhigeedu uu yahay Ingiriiska iyo wakiilo kale oo jooga Masar iyo Tunisia. Halka baaritaan la sameeyay oo haatan lagu daahqaaday dalka Canada lagu ogaaday inay sidoo kale heshiiskani qayb ka ahaayeen 3 sarkaal oo ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ee duulista markaasi loo soo gaabiyo ICAO oo fadhigeedu yahay magaalada Montreal ee dalka Canada oo shaqadoodu ay ahayd inay u daabulaan hubka. Sida ay sheegeen waa wargeyska The Telegraph oo soo xigto xogta baaritaankan lagu sameeyay 3 qof oo heshiiska qayb ka ah ee Canada lagu qabtay. Qayb ka mid ah diyaaradaha waxaa loogu qabtay Talyaaniga mana guuleysan heshiiskan oo Shiinuhu ku rajeynayay inuu markaasi dhalin doono si dhaqso ah. Generaal Haftar oo ku guuleystay dagaalka sokeeye taasoo oggolaanaysa Shiinuhu inuu saameyn ku yeesho markaas Liibiya si uu uga faa'iideysto kheyraadka dalkan ku yaala ee waqooyiga Afrika. Hadda Shiinuhu waxa uu xiriir la leeyahay dowlad la aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Natiijadu haddii la xaqiijiyo xiriirka Generaal Haftar iyo Shiinaha markaa wuxuu Shiinuhu kala kulmayaa xukuumadda Tripoli wejigabax. Waayahay dhegeystayaal weli waxaad dhegta ku haysaan barnaamijka bandhiga Hiiraan ayaadna sidoo kale aad inagala socotaan waxaadna naga dhegeysan kartaan ama baad naga dhegeysanaysaan magaalooyinka Beledweyne Buuloburta Jalaqsi iyo Jowhar halka caalamka intiisa kalena aad nagala socotaan aaladda live streamka. Dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweeyay dhexdhexaadinta Turkiga ee loogu talagalay in lagu soo afjaro markaasi dagaalka ka socda dalka Suudaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay inay diyaar u tahay inay la shaqeyso oo iska kaashadaan Turkiga si loo dhameeyo khilaafka Suudaan iyadoona markaasi xustay in dhexdhexaadintu ay taageerayso amniga iyo sidoo kale xasilloonida gobolka.
Dowladda Imaaraadka ayaa adkeysay baahida loo qabo bal markaasi in la joojiyo dagaalka iyo sidoo kaleeto in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka u baahan iyo sidoo kale bal markaasi waa geedi socod siyaasadeed oo keeni doono dhismaha dowlad madani ah. Turkiga ayaa horey u dhexdhexaadiyay Suudaan iyo Imaaraadka taas oo lagu soo afjaray xiisad ka dhex taagneed labada dal kadib markii madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan uu taleefanka kula hadlay guddoomiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdel Fattah al-Burhaan. Dhinaca kale, dowladda Suudaan oo uu hogaamiye Cabdel Fattah al-Burhaan ayaa si cad u diiday wararka sheegaya in dalku uu wajahayo macaluul, isagoona sheegay in xaaladda aanan ahayn mid bal markaasi abaaruhu ay saameynayaan, sida lagu sheegay warka ka soo baxay Cabdel Fattah. Waayahay dhegeystayaal, duhurnimo wanaagsan. Weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Bandhigga Hiiraaweyn aad naga dhageysanaysaan. Hogaamiyaha Suuriya ayaa xaddii sheegay in muddo 4 sano ah ay qaadan karto xilliga la qaban doono doorasho ka dhacda Suuriya, isagoona intaasi raaciyay in bal markaasi ay qorsheynayaan sidii loo kala diri lahaa kooxdiisa Islaamiga ah ee uu hogaaminayo uu hogaaminayay kacdoonka dalkaasi ee xukunka looga tuuray dowladdii bal markaasi waa taliskii Bashaar al-Assad oo muddo dheer dalkaasi xukumayay. Axmed al-Sharaa oo hogaamiyaha jabhadda Hayat Tahrir al-Sham oo ah kooxda majaraha u hayso dhaqdhaqaaqyada hadda la wareegay awoodda Suuriya, ayaa hadalkaasi ka sheegay wareysi uu siiyay telefishin laga leeyahay Sacuudiga oo la yiraahdo Al Arabiya. Hadalkan ayaa imaanaya kadib ku dhowaad muddo bil ah oo ay xukunka ay hayeen ka gadaal markii ay si bal markaasi biriqdi ah oo kale bal markaasi gobolada dalka oo dhan ugu xoreeyeen dhammaan ciidankii dowladda waqtiga dheereed ee reer Assad, taas oo Suuriya xukumayay muddo ka badan 50 sannadood. Kacdoonkaasi ayaa soo bilowday sanadkii 2011 waxaana ku dhintay 10,000 halka malaayiin kale ay qaxeen amaba ay ka barakaceen guryahoodii ay ku sugnaayeen. Axmed al-Sharaa waxa uu sheegay in ay waqti qaadan doonto doorasho xor ah, iyadoona loo baahan yahay buu yiri ciidamo kala duwan, wadahadallo siyaasadeed iyo in dib loo qoro dastuurka Suuriya. Wuxuu kaloo sheegay in kaabayaasha dalka ay aad u liitaan loona baahan yahay in bal markaasi dib u dhis cusub lagu sameeyo gudaha dalka Suuriya. Qaybihii dhexe ee barnaamijka Bandhigga ayaad dhageysanaysaan. Dhegeystayaal, Hiiraaweyn ayaadna dhegta ku wada haysaan. Waxaad nagala socotaan Jallaqsi, Buloburto, Beledweyne iyo Jowhar ayaadna naga dhageysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa markaasi taageeray maalqabeenka iyo sidoo kaleeto milkiilaha shirkadda Tesla Elon Musk kadib markii hadal uu markaasi Musk sheegay uu keenay muran dhex maray taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga. Elon Musk waxa uu sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay hanaanka lagu helo fiisaha shaqada ee markaasi loo soo gaabiyo H-1B, kaas oo shaqaalaha xirfadda tiknoolajiyadda leh ee ajaanibta ah lagu keeno dalka Mareykanka. Qaar ka tirsan taageerayaasha Trump oo diidan soo galootiga ayaa arrintani ka hor yimid. Trump ayaa xilligaasi hore xadiday bixinta fiisaha, ayaana Sabtidii shalay
wargeyska The New York Post u sheegay in sidii Elon Musk uusan taageersan yahay barnaamijka fiisaha ee shaqaalaha ajaanibga ah ee la keenayo gudaha dalka Mareykanka. Trump ayaa yiri waxaa jira dad badan oo fiisaha H-1B ku yimid oo markaasi hantidayda ka shaqeeyo. Weligay waan rumaysnaa, marar badan baana markaasi adeegsaday. Waa barnaamij qiimo leh. Elon Musk oo naftiisa sharciga Mareykanka qaatay, asal ahaana dalka South Africa kasoo jeeda, kasoo jeeda dalka South Africa, ayaa ku yimid fiisaha H-1B. Fiisahan ayaa muddadiisu ay tahay 3 sano, inkastoo dadka haysta ay sii dheeraysan karaan ama ay markaasi green card codson ay markaasi samaysan karaan. Dalka Itoobiya, 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay waddo ku taalo markaasi gobolka Sidaama ee koonfurta Itoobiya. Saraakiisha gobolka iyo kuwa markaasi caafimaadka ee isbitaalka ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in ugu yaraan 71 qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay degmada Boona ee ku taalla bariga Sidaama ayaa markaasi dhanka koonfureed ugu beegan magaalada Addis Ababa. Meta Mengistu oo ka mid ah madaxda dowladda hoose ee deegaanka ayaa masiibada ka dhacday markaasi kala hadlay u sheegay warbaahinta in shilkan ku dhacay webiga Galana oo 125 u jira magaalada Hawassa ee caasimadda ismaamulka Sidaama. Wuxuu sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo waday rakaab fara badan uu ku baxay buundada ama bridge uu marayay, kadibna uu ku dhacay webiga. Dadka dhintay ayaa isugu jira 68 rag ah, 3 dumar ah. Dhibanayaasha ayaa la sheegay inay ka soo laabanayeen amaba markaasi ka yimideen xaflad aroos kuna sii jeedeen guryahooda. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jim markaasi ayaa shalay oo Axad ahayd ku geeriyooday xarun si gaar ah loogu daryeelayo ku dhex taalla guriga uu ku lahaa degmada Phoenix ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Madaxweynahan ayaa ahaa madaxweynihii 39aad ee soo xukumayay dalka Mareykanka, waxa ayna hadda da'diisu ahayd 100 sano jir. Waxa uuna dalka Mareykanka madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1977 ilaa 1981. Wiil uu dhalay madaxweynaha geeriyooday waxa uu sheegay in aabihiis in badan lagu dadaalay daryeelkiisa. Waxa uuna ku sifeeyay aabihiis inuu ahaa geesi aad looga jeclaa gudaha Mareykanka, sidoo kalena ahaa nin jecel nabadda kana shaqeeya ilaalinta xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa noqonaya madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara dalka Mareykanka, waxaana bishii Oktoobar ee sanadkani u dabaaldegayay da'diisa 100 sanaad. Mana jiro madaxweyne Mareykan ah oo soo gaaray da'dan oo kale. Madaxweyne kala duwan oo caalamka xukumay ayaa tacsiyeeyay geerida ku timid madaxweynihii hore ee Mareykanka, waxayna inta badan madaxda caalamka ay ka hadleen geerida madaxweynahaasi waxayna ku sifeeyeen
inuu ahaa hogaamiye wanaagsan oo bal markaasi ka shaqayn jiray nabadda iyo sidoo kaleeto horumarka. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhigga ee warbaahinta Hiiraaweyn ayaanu markan isla soo gaarnay kadib markii uu si weyn usoo bal markaasi hoos ugu dhacay saameynta Faransiiska ee qaaradda Afrika, iyadoo Faransiiska lumisay awoodiisa dalal badan oo ku yaala geeska iyo galbeedka Afrika. Paris ayaa dadaal ugu jirto sidii ay u soo celin lahayd saameyntii hore iyo sidii ay u ilaalin lahayd waxa ay bal markaasi ka haysato. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah khubarada iyo sidoo kaleeto dabagalayaasha xaaladda siyaasadeed ee Afrika, hadaladii uu madaxweynaha Faransiiska Macron iyo markaasi sidoo kaleeto howlgallada ciidamada Faransiiska ee qaaradda ayaa kiciyay su'aalo iyo sidoo kale sharaxaad badan oo ku saabsan qorshaha Paris ee soo celinta saameyntii ay ku lumisay Afrika. Hoos u dhaca saameynta Faransiiska ee Afrika kadib guuldaradii weyneed ee Faransiiska, iyadoo ay lumisay saameyntii ay ku lahayd dalalkaas bal markaasi saaxil, Mali, Niger iyo sidoo kale Burkina Faso iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Faransiiska ayaa dhowaan ka mid noqday dalalka kale ee aanan ku jirin bal markaasi saameynta xoogga leh sida Chad iyo Senegal, kuwaasoo ku dhawaaqay dhammaadkii November 2023 inay joojiyeen joogitaanka militariga Faransiiska iyo heshiisyadii iskaashiga ee difaaca ee bal markaasi kala dhexeeyay dalkaasi. Tallaabooyinkan waxay bal markaasi ayaana ku waajibay ciidamada Faransiiska inay isaga baxaan qorshaha soo celinta saameynta Faransiiska, sida uu sheegay Maxamed Cali Gabani, khabiir ku xeel dheer arrimaha Afrika. Hadaladii uu sheegay Macron iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada Faransiiska ee qaaradda waxa ay muujinaysaa qorshe cad oo Faransiisku uu doonayo inuu ku soo celiyo saameyntiisa, gaar ahaan laga bilaabo xeebaha Badda Cas iyo Geeska Afrika, iyadoo la tixgelinayo kororka saameynta Turkiga ee gobolka. Faransiisku waxa uu arkaa Djibouti inay tahay xisaabtiisa xoogga ugu weyn ee Afrika, sidaas daraaddeed waxay noqon doontaa saldhigga ciidamada Faransiiska ee ka howlgala dalalka deriska ah si ay uga soo celiyaan awoodda Badda Cas. Djibouti xarunta guud ee Faransiiska. Djibouti oo ah saldhigga ugu weyn ee Faransiiska ee Afrika ayaa loo arkaa inay muhiim u leedahay qorshaha Faransiiska. Faransiisku wuxuu sidoo kaleeto heshiis cusub la galay Djibouti oo lagu kordhinayo iskaashiga militariga 10 sano ee soo socda, iyadoona la kordhiyay awoodda ciidan ee Faransiisku u ku leeyihiin Djibouti si ay u noqoto xarun lagu bilaabay amaba markaasi laga bilaabo howlgalka militariga Faransiiska ee gobolka. Faransiisku waxa uu markaasi ku raacsan yahay in Djibouti noqon doonto xarunta ugu muhiimsan ee ka howlgalaysa dalalka kale ee ku yaala Geeska Afrika. Faransiisku waxa uu ku lug leeyahay xaaladda gudaha ee Afrika. Intaas waxaa dheer, Faransiisku wuxuu si qarsoodi ah ugu shaqaynayaa kordhinta saameynta gudaha dalka Afrika, gaar ahaan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, halkaasoo si cad ugu taageero mucaaradka dalka, sidoo kalena in la abuuro xaalad bal markaasi khilaaf si loo sameeyo siyaasadda gudaha dalkaasi. Faransiisku waxa uu qorsheynayaa inuu ka faa'iideysto mucaaradka gudaha iyo xaaladaha siyaasadeed si uu dib ugu soo celiyo saameyntiisa. Dhinaca kale, saameynta Turkiga ee Geeska Afrika iyo Badda Cas ayaa noqotay caqabad weyn oo bal markaasi soo wajahday Faransiiska. Dalalka ugu muhiimsan ee Geeska sida Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku jira saameyn xooggan oo bal markaasi uu ka timaada Turkiga, waxaana jira iskaashi militari iyo heshiisyo ganacsi oo labadaas dal oo Turkiga la galay. Tani waxay Faransiiska u arkaan inay tahay khatar weyn, maadaama Soomaaliya ay tahay meel muhiim ah oo ay Faransiisku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan. Macron waxa uu sidoo kale muujiyay taageeradiisa Itoobiya oo codsigeedu yahay in ay heli karto marin badeed oo loo aqoonsan yahay inuu yahay dalab sax ah, isagoona sidoo kale ballan qaaday taageero dhaqaale iyo iskaashi militari oo dheeri ah. Suudaan iyo xiisadda gobolka. Dalka Suudaan ayaa sidoo kale ku jira siyaasadda Faransiiska, iyadoona la sheegay inuu Faransiisku uu bal markaasi si qarsoodi ah ugu taageero kooxaha bal markaasi qaarkood sida difaaca xoogga ee ay taageerto. Iskaashiga ayaa noqon kara qaybo ka mid ah dadaalka Faransiiska ee bal markaasi loogu talagalay inuu ka faa'iideysto xaaladda siyaasadeed ee gobolka. Dhaqdhaqaaqyada Faransiiska ee Afrika iyo kororka saameynta dalalka kale sida Turkiga waxay keeni kartaa khilaaf iyo qalalaaso weyn oo saameyn ku yeelan doono nabadda gobolka. Waa tahay dhegeystayaal, guud ahaan waxaa intaasi inooga eg
barnaamijka bandhiga oo aad ka dhageysanayseen Hiiraan Weyn.